إلهي كافر يا أدر وأنا كمير كده ودكو يميد وويل كمير كده ودكو هاتكي الجوالد مساحي ياك عافية ويل كيجي marka hore adeer waxaan doonayaa magacaaga ogaado حميد محمد حيدر xamiid maxamed xaydar ilaaha kaa farxiya adeer xamiidow markaan ku yiminayay aan kula gawaaridan ayaan masaxa anigu kuna sheegay arday jaamacadda dhigtay inaan ahay maxaa kugu sababay inaad siiso 1500 adiguna aad kunka la hadho markii dambena wax dhan isku kay wada dartay maxaa dhacay artu wiilkayga anoo duruufo badan igu xeereeyo guri iyo waxaan ku yiri reer isugayo haddana waa ka adkaysan kari waayay maxaa yeelay qofka bilaadanka sidaada kolba laga soo qaada macnaha qalbigaygu ويسيب واي إن أنا وحلا كدرو أنا جو ولي بإلهي كسوجي يا بح خير قبيني ويجو بدلو أنا ديك كسيه العكتي أنا هي ولي بأني جو عيال كيجا أنا ميلو جوجين وحي عنان لكن ما حد سينا سعرورت هذا مركا ملعك له بدن أيام ميلكو تلا ديلو والله يبانو بقول حتى ميلي يقول حدي أنكور عددك عادي قاس خير دم باك مصروف عددكم ما أمينيان صار تيادن خير دم باك مصروفة وأنا كل شقة استعادي قادر كيسو الشغل عيب ملها سيدي بقى ama ha yaraata ama ha weynaatee marka ilaahay baan ugu xamdinaa waanan ku shaqaystaa cadayga aad arkayso waa shaqaduna ceeb ma adeero muhiimaddu waxa weeye qofku inuu shaqaysto ma kula tahay 10 qof inay ka aqood ka sugayaan oo waliba guriga ay jooga oo biyo la doonayo oo cuntana la doonayo sidoo kale oo waliba waxyaalo badan ay ku sii dheediyeen duruufin noloshuna ay kugu xeereen aad iibinaysaana ma ku filan yihiin tusaalahan kiradii iyo qoodkaagiiba wiilkaygiyo waxba ma jaray waxa soo dhanna runaantii gama kafaynayo runtii waxba ma tareeso laakiin alxamdulillah berigii hore macallin baan ahaan jiray 15 kun oo aan qaadan jiray haddana iguma filan jiray yani waxaad ka wada waqtigaas kuma filan jiray iguma filan jiray wallahi anigoo 12 saacadood maalintii shaqaynaya ayaan igu filan jiray mararka qaar aan u shaqeeyo miyaa u soo baxaya ayaan 20 kun xitaa heli jirin shaqooyinka aad ka shaqaynaysay miyaan wax fiican kaaga dhigmi jirin runanti 20 rajab ayay igu dambeysay shaqo aan ka shaqeeyo macnaha sanad kaamila sanadka 2 bilood kaliya shaqeeyay waa shabcaan iyo rabadaan wallahi ilaahay weyna xaq lagu caabudaa ayaan ku dhaartay 3 xashum ma shaqeeyay sanadan ayaad intaas oo kaliya shaqeysay sanadan iyadoo awlaad waliba gurigii ugu sugayso oo aan maalintii oo dhan ilaa habeenkii xitaa suuqa joogay ayaan hadra wax la'aan ugu tagi jiray carruurtayda anigoon hal riyaal wadan waliba saasay tahay gurigaygu bilaa raashin ayuu ahaa dhowr biloodna gurigu bilaa biyaha 7 biloodna shooladaydu bilaa gaas ahayd marka maxaad yeeshanaa kiraan bixiyana bishii lixaad ayay igu dambeysay ilaahay baan ku dhaartay ninkii guriga iska lahaa wuxuu igu yidhi rabadaan markay saw dhamaato 6 bilood lacagtooda ayaan ka rabaa gurigana waa inaad ii faraaqaysaa haddii kale waxbana idinkama rabe sidaasun igu dhaafa alaabtiinana bannaankaan idiin dhigaya maxaan samayn karaa hablahaygii iyo xaaskaygii ma bannaankaas ayaan la seexan karayaa waxaana nahay qof ku qanacsan wuxuu ilaahay u qadaray ilaahayna raalli ahaanshihiisa ayaan mar kasta doonaya anigu waana nugu xamdinaqayaa mar kasta ilaahay baan ugu xamdinaqayaa sanad iyo 2 bilood haddii xanuun ku dhaco amba ciyaalku xanuustaan wallaahi aan kuu sheegay wax kale iska badaayo xitaa waxaan dayn ku waayay kaadhkii dhakhtarka aan u soo jiray lacagtiisii xaaskayga waliba waxaa laygu yidhi 20 kun ayay daweynteedu noqonaysaa aniguna xabad irbada xitaa waan u awoodi waayay imika muddo 4 bilood laga joogaa ilaa hadda daaweyn umaad iibin xaaskaaga wallaahi xitaa doctorka waan u tagay waxaan ku yidhi ma awoodayo lacagtan adigu soo qorteen meesha aniguna runtii waxaas oo dhan ma awoodayo laakiin de wax kastaba waan isku dayay inaan sameeyo waan awoodi waayay qof bilaadan gacanta uma taagay adigu waliba qof idan ilaahay ma baryo xaalad aad ku jirto adeer haddana aan awoodi karin waxaan sameeyaa intuu ilaahay dhinac u kala ridayay inaad sugamaysi kala male ilaahay un baan tala saartay anigu haddaba imika adeero anigii adigu waxaan gelaynaa tartan haddaad ku guulaysato adeero haddii aad ka jawaabto su'aasha waxaad helaysaa abaalmarin lacaga laakiin si sax haddaad uga jawaabi weydo dhammaan dhalinyarada halkan taagan oo dhan adagan aad hayso ayaan xabad xabad ugu qaybinaya waa caadi waad u qaybin kartaa xitaa haddaan ku guulaysto allah caadi wax weyn maagiisa aadanka ayaa ka qaalisan wax kasta ilaahay ka farxiyo adeero aana ku xafido indhahaaga xaaskaaga iyo ciyaalkaaga dhammaanba su'aasha koowaad waxay ku leedahay adeero su'aasha koowaad waxay leedahay bisha rabadaan aan ku jirno waa maxay waxa soo degay waxa sheega bisha rabadaan soo degay andhaho kitaabada samaawigaay kitaab kamida kitaabada samada ka soo degay oo soo degay bisha rabadaan waa quraanka ma quraanka kariimka jawaab sax miya mise maaha jawaabtu waa sax haddii saa tahay sax baa loo tumo abaalmarinta koowaad waxna ma qoro waxna ma akhriyo
وستكو وقاتين قرآن كريم كهي ilaahay baa ii saqiray waayo dee berigaan yaryareen anagu maanaan helayn waxbarashiyo waxaas arigaas baan la raacin jiray oo deetana saasaan ku saagnayba maanaan iyosan baxdaa si kasta haataba adeero waad ka jawaabtay su-aashan ku weydiiyey waa konton kun oo riyaal tanna waa qiimihii su-aashii aad ka jawaabtay weeye miyaad igula soo gudbi kartaa su-aal kale inaan gallo insha allah mise intaanaad haysato ayaad iskala tegi doontaa insha allah waan u gudbaynaa waana kula gaadhaya waad u gudbaysaa insha allah adeer haddii aan u gudubno anigu safaadka ma aqaan hadda haddii aan u gudubno ood khalad ku jawaabto haddaad khalad ka jawaabto waxaan kaa soo ceshinaya lacagta horan ku siiyey caadi cadaygo dhanna waan kaa waa qaadanaya caadi dhib male cadayga iyo lacagta waad marka adiga wax ku soo hari maayaane dhib ma laha wayn gaadhaynaa soo maha wayn gaadhaynaa waan u gudbaynaa haddaba su-aasheena labaad waxay ku leedahay maadaamaan ku jirno bishii raxmadda iyo khayrka badneed ee rabadaantii barakaysneed haddii aan u gudubno ii sheeg 5 ka mida magacyada ambiyada iyo rususha alla soo diray ambiyada maxamed calayhi salaatu maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam ibraahim calayhi ibraahim hadda ogsoonaada sheekhu waxna ma qoro wax ma akhriyo maasha allah diintan uu yaqaanaa ciise calayhi salaam ciise calayhi salaam iyo muuse calayhi salaam ismaaciil iyo ismaaciil calayhi salaam haddaba dhalinyaro su-aashu ma sax ba mise waa khalad haddaba sax buu leeyahay waa u qalmaa خلاص ده اسكا يارانه adeer xamiid waxaad ku guuleysatay 2 su'aalood oo u dhigma 100 kun oo riyaal kun jeer waxaan ku leeyahay hambalyo adeer xamiid wuu soo baxay cadayo ayuu iibinaya qof ibni aadana gacantiisa ugu taagan shaqaduna ceeb maaha walaalayaal maanta waan arkay hadaad u jira adeer xamiid ma sha Allah wuu soo baxay waxbuu iibinayay waxaanu coonayay irsaq xalaala waa farin ku socota mid kasto dhalinyaro rag iyo haweenba oo cid gacanta u taaganaya waayo alla kariim weeye walaal magaalada u soo baxa oo shaqayso ilaa irsaq xalaala weydiiso intaad qof gacanta u taagan lahayd shaqadu ceeb ma hadda xitaa haddaad hesho 1 riyaal karton yurubiskida soo iibso oo ilaahay ku baryo ku iibso marnaba shaqadu ceeb maaha adeer kun jeer ayaan ku leeyahay hambalyo qarashkaan ku siinay inkastoo aanu badnayn bes laakiin waad badisay iska tago carruurtaadii ka farxi mid keliya aan ka codsanay adeer adoo iga raaliya inaad dhakhtarka tagto oo daweyn ku soo qada xaaskaagii adoo iga raaliya adeero إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وحقور ينكو دقاقة يوي إن شاء الله إن شاء الله الله يرحم أدقنا وحن إلهي كاقبر يا صادق فرح سينو كاقبر آمين يا رب إلهي عفماد أصي إلهي كافر حيو أدير قاليو هادبا داوداشيدا qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii iyo xalqadeena cusub walaalahay waxaan idiga codsanaa inaad muuqaalada fiiska kor noogu qaadaan oo aad meel dheer gaarsiisaan dhamaantiinba subscribe like meel kastana gaarsiiya wa fi amaanillah